Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka laga muuqaal cusub kusoo dhawow BTech. Muuqaalkani waxa uu la socdaa muuqaaladii hore ama saddexdii qaybood ee hore. Waa qaybtii afraad oo markaasi aynu ku eegi doono sida loo secure gareeyo ama aad u adkeysan lahayd Gmail-kaaga si aan lagaaga jabsanin. Saddex qaybood oo hore waan soo dhaafnay sidii loo sameynayay, sidii lamarka loo gashanayay, sidii recovery email loogu sameysanayay. Marka waxaynu ku eegi doonaa muuqaalkan sida loogu xidho two step verification si aan lagaaga jabsan Gmail-kaaga. Kusoo dhawow muuqaalka. Mobilkaagaad soo furaysaa sidii caadiga ahayd waxaan teganaa settingka halkii laga geliyay Gmail-ka ama laga manage gareynayay. Settingka markaad soo furto halkan waxaad ka dooran doontaa Google ama Google. Markaad ka doorato Google-ha halkan waxaad markaasi kasii dooran doontaa manage your account. Manage your account markaad doorato awal hore markaynu gelinaynay phone numberka ama markaynu gelinaynay recovery emailka waxaynu dooran jirnay personal information halka ay ku qoran tahay, laakiin markan waxaynu dooranaynaa halka ay ku qoran tahay security ama halka security ay ku qoran tahay baad dooran doontaa. Halkan hoose wadiga arkaya optiono fara badan baa markaasi kaaga soo muuqda oo ah qaybtii security-ga Gmail-ka. Halka waxaa ku jira use your phone to sign in si aad lamarkaaga markaasi ugu isticmaasho Gmail-ka oo halkii Gmail-ka aad gelineed aad lamarkaaga geliso u furo. Tan ka hooseysana waxa weeyaan two step verification oo waata aynu imika u socono. Kuwa kale hay noo dambeeyaan. Hadda muuqaalka waxa ugu saabsan yahay two step verification sidii loogu furanayay. Haddaba halkan aad markaasi ku dul dhufan doontaa two step verification ay ku qoran tahay. Markaad ku dul dhufato browserada kugu jira ayuu markaasi optionadooda ku siin doonaa ka aad jeceshahay baad markaasi ka dhexgeli doontaa. Hadda anu Chrome-kan dooranaya ama Google Chrome-ka saad u taqaano, markaa kaasaad dooran doontaa aad doonayso inaad gasho. Hadda marka uu saa u raadiyo halkanu markaasi kasoo saari doonaa ciwaankii aynu doonaynay inaynu ka bedelno ama inaynu ku xidhno two step verification. Xogaaba sugi doontaa markaasi inta uu searching-ka ku wado. Qaybtan markaasi marka uu sidaa kugu soo saaro halkan waxaa markaasi uu kugu sheegayaa add an extra layer of security ama qayb dheeraad oo dhanka security-ga ah ku darso. Tan ka hooseysana waxa weeyaan keep the bad guys out ama ka qarso kuwa yarare wax jabsada ama waxaas maaragtay attackerska ka qarso. Marka get started baadonsa si aad ugu xidhato. Get started markaad ku dhufato waa ku raadinayaa xogaabaad markaasi yar sugi doontaa kolba sida uu khadkaagu yahay. Halkan markaa waxa aad gelin doontaa furaha Gmail-kaaga si aad access ugu yeelato in aad ku xidhato two step verification. Hadda waxaan gelin doonaa furihii ciwaanka. Hadda furihii ciwaankan geliyay markaa next baad odhan doontaa. Next marka aad tiraahdo halkan markaasi ku soo saari doonaa mobilkaagu nooca uu yahay halkan kugu soo qori doonaa. Hadda waa kaygiiba halkan igu soo qoray. Halkan sare waxaa kugu qoran sharaxaadii ama waxa uu ku saabsanaa waxaad raadinaysaa ama two step verification-ku use your phone as your second sign-in step. Waa qaybta labaad ee markaasi lagu sign in gareyn karo oo cidi ma jabsan karayso. Google will send a secure notification to your phone as your second factor during two step verification. Marka uu maaragtay qof isdhaafo jabsa Gmail-kaaga ama uu faraha la soo galo markaaba waxa lagu soo diri doonaa fariin ku sheegaysa in la jabsan rabo Gmail-kaaga. Halkaasaad markaasi ka ogaan doontaa ama aad ka badbaadin doontaa qofkii jabsanayay Gmail-kaaga. Markaas si aad ugu xidhato try it now baad ku dul dhufanaysaa qaybtan hoose. Halkan marka aad ku dhufato waxa uu ku soo saari doonaa qaybtan cad ee markaasi uu ku kala weydiinayo in aad adiga tahay qofkan isticmaalaya inuu qof kale yahay. Hadda waxa uu soo saaray meeshii aan joogay device-kaygu noocu yahay iyo waqtigiiba markaas. Halka marka doonto halka yes baad ku dhufan doontaa. Yes markaad ku dul dhufato wuu approve gareeyay oo hadda waxa uu diyaar u yahay inuu kugu xidho. Markaasi lambarkii aad ku xidhatay mobilkaaga lambarkii aad gelisay
gmailkaaga ayaad markaasi halkan markaasi uu kuu soo saarayaa, kadibna sandi baad odhanaysaa si uu koodhka kuugu soo diro lagugu xidhayo two step verification. Halkan aniga imika lambarkaygiiba ku jira aan ku xidhay, markaas sandi baan odhanaya si uu iigu soo diro. halkan hoosena waxaad kala dooran doontaa text message iyo phone call, in lagu soo garaaco iyo in message lagu soo diro, labadaba kaad markaasi jeclaato ayaa dooran doontaa. hadda messagekan dooranaya, sandi baan odhanaya markaas. sandi markaad ku dhufato waxa uu process garanaya si soo diritaankii. hadda halkan waxaa sugaya markaa koodhkii uu ii soo dirayay si aan two step verification ugu xidho. koodhkii wuu ii soo galay, koodhkaa lagu soo diray baad markaasi halkan gelin doontaa. hadda koodhkan gelinaya 361735. koodhkii marka aad saa u geliso, halkan markaasi waxaad ku dhufan doontaa next marka ku dhufato u verify garanaya. halkaa imika waxaa diyaara inaad two step verification u furato. markaa two step verification waxa weeyaan ta ugu adag ee markaasi aad ku ilaashan karto gmailkaaga. halkan hoosena markaasi waxa uu kuu soo dhigi doonaa mobiladii markaasi aad gelisay gmailkaaga. halkan waxa uu soo dhigay imika you will stay signed into barkad@gmail.com on these devices. marka waxa uu ku sign in garasmi doonaa markaasi device-yadii aad gelisay haddii aadan ka saarin. imika anigu kan iigu jira iyo mobilka kale ee 10s-ka ayaan geliyay markaasi, oo marka uu ku jiraya haddii aadan kala bixin, waana secure weyn oo ku sheegaya mobilada ama device-yada aad ku isticmaashay gmailkaaga. marka imika turn on ayaad ku dhufanaysaa si aad ugu furato oo kuugu xidhmo. waa qaybtii ugu dambeysay markaasi, turn on baan ku dul dhufananaa. turn on markaad dul dhufato, hadda saasuu kuugu furan yahay two step verification. waa kaa uu verified garaysan yahay, oo kaa verified ayuu kuu soo qoray. halkanna markaasi waxa uu kugu soo qoray inaad markaasi uu ku secure garaysan yahay mobilkaagu. mobilada markaasi uu gmailkaagu ku jiro ama device-yada aad gelisan halkan uu markaasi kaaga soo saari doonaa. haddii aad doonayso inaad two step verifications ka xidhana, halkaas sare waa ka kuu soo saaraya, turn off baad ku dul dhufan doontaa markaasi si aad iskaga xidho. waqtigii aad markaasi aad furatay buu halkan kuugu sheegayaa two step verification is on 6 April 20. wakaa taariikhda aad furatay buu markaasi halkaa kuugu sheegayaa. halkan waa text message ama lambarkii aad ku verify garaysay. qaybtan hoosena waxa weeyaan waa security kale oo markaasi aad gmailkaaga ku adkeysan karto. qaybtan backup codeska la yidhaahdo iyo tan authenticator la yidhaahdo oo isaguna markaasi security ka qayb qaata. kana waa security key, kani waxa weeyaan revoke all ba la yidhahdaa. waxaan oo dhanba gmailka markaasi security yihiin, iyagana muuqaala damban markaasi ku eegi doonaa. hadda muuqaalkeenu waxa uu ku saabsanaa two step verification. two step verification oo waanu ku xidhnay imika gmailka, marka lagama yaabo in la jabsado ama secure ayuu noo ahaanayaa. adiguna marka sidaas si lamid ugu xidhato gmailkaagu waxa uu ku ahaanaya secure, marka cidina kaama jabsan karto. haddii la isku dayo in lagaa jabsadana, markaaba fariin baa kusoo dhici doonta ama waa lagu soo wargelin doonaa in la jabsanayo gmailkaaga, adiguna waad ka gaari doontaa markaasi. waxaan rajeynayaa inuu muuqaalkani faa'iido weyn kuu noqday si aad u secure garayso gmailkaaga. aad iyo aad baad mahadsan tahay. subscribe iyo like iyo sharena noogu qabo si markaasi ay dhiirigelin noogu noqoto muuqaalo dambana ama cusubna aan usoo gelino. wasalaamu calaykum.